kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idin ahaantiin meel walba joogtaan waxaad leenahay kusoo dhawaada barnaamijkeena faaqidaada kulay waxaan maanta aan usoo galay barnaamijkan faaqidaada oo caawan ka tagnayna waxay tahay kulankii xiisaha lahaa ee xalay soo idlaaday ee dhex maray kooxda Tottenham Hotspur iyo weliba PSG oo ay wada ciyaarayeen Superkabaha finalkiisa ama ciyaartaasi kulanka Superkabaha haddaba Superkabaha waxaa dheela labada kooxood oo kusoo kala guuleysta Europa League iyo UEFA Europa League iyo UEFA Champions League Tottenham ay UEFA Europa League kusoo qaadatay ama kusoo guuleysatay ayadana sidoo kale inta waxay kusoo guuleysatay PSG iyo UEFA Champions League haddaba ciyaartaasi xalay dhacday iyo qaabka ay u dhacday iyo weliba maxay kaga dhigan tahay soo laabashadii kooxda PSG iyo weliba kooxda Tottenham oo ayaduna laga daba keenay goolashii lahayd 10 daqiiqo gudahooda maxay ahayd marka sababta ugu weyn ay kooxdaasi ay u loos gareysay koobka PSG ayadoo ay ka dhimatay kooxdu ama ay ka rajabeyshay oo rajadeedu aad ay u dhimatay ayaa markaas rajadeeda gadaal ka soo laabatay waa maxay sababta oo tababarahaasi u qalday ciyaarta iyo sababaha looga baahnaa inuu sameeyo tababaraha kooxda Tottenham Hotspur way marka oo asigoo laba gool leh oo 2-0 ciyaartu ay tahay 84 gool laga dhaliyay aadna 5 ciyaartii 90kii dhamaatay 90kii markaas waxa laga dhaliyay markii waxa lagu diray 5 daqiiqo dheeri ah maadaama 5 daqiiqo dheeri ciyaarta lagu diray waxay u baahan tahay ciyaarta marka wax la yiraahdo waa ciyaar final ah waa ciyaar cup ku yaalo oo koob ku yaalo maahan marka kooxda la dheelayso waa koox PSG waa koox kubadda dhanka si kaaga soo dhisi karta marka ma aysan ahayn sida Tottenham oo kale koox ah inay xalay marka ay banooni furfuran la dheesho because sababtoo ah kooxda waa koox xaaladeedu iska naqaanaba kooxda Premier League kooxana gool ka dhalay ma jirtaba boqolkiiba 9 waxa 90 waxa ka badinaya xitaa kooxaha Yariska Fulham iyo Stoke City iyo Sunderland iyo haday iska hor imaadaan dab iyo xawada laga tumaayay Tottenham sababtaas waxa ay tahay because kooxdu ma lahan difaac defensive-geeda ay markaas adkeyn karto difaaceeduna ma ahan difaac solid ah markaas ama adag ama bir ah oo cidii ka hor timaado kale inta iska dhicin karta sida marka maxaa looga baahnaa waxyaabahan ka baranayna maxay ahaayeen kulankii xalay marka dhacay Tottenham looga guuleystay ayadoo rajo lahayd waa koobkii ugu horeeyay ever noloshooda ay qaadi lahaayeen oo ahaa inay qaado taariikh fiican bay dhigi lahaayeen UEFA Champions League ma aysan qaadin laakiin UEFA European League ay qaadeen okay waxa marka laga rabay maadaama UEFA European League ay qaaday inay hadana Superkabihi ay ku darsato Soomaali waxay dhahdaa dukuhu nasiib uu wax ku helo uu leeyahay oo mar walba uu helaa wax laakiin calaf oo ku hanto oo ku haysto ama oo ku cuno ma lahan sababtoo ah laba gool ay ilaa 84 ku hogaaminaysay kulankii ay Chelsea la dheelaysay final finalkii oo ahaa Club World Cup-ka ayaduna sidoo kale 3-80 lagu hayay محما Tottenham xal way dheeshay waa dhan kasta way ku fiicnay inuu marka macallin kan maanta daacado ugu yiraahdo anaga waxaan la dheelaynaa anaga koox shibal la dheelaynaa waxaan la dheelaynaa koox iska normal iyo waqtiga rabna gool ka dhali karnaa in la dhaho daad waxa keentay hadii macallinka uu xeran lahaa train maadaama 84 laga dhali gool 90kii ay sida caadiga normaliga ku soo dhamaatay 5 daqiiqo lagu diray 2 daqiiqo kamid ka baxday waxa la xiray lahaa train inuu xirto aha 94 laga dhali goosh labaad darow laga dhigay ciyaarta penalty shoot aadisa oo loo tuurayo kubadda penalty la tuurana marka ma fiicnayn waxa laga rabay penalty sidiisu waa rajo koox sideedaba gadaal ka timaado ba qaado penalty koox ayadoo dhimar rabtay gadaal ka soo noolaato حقيق وتسوى كهايا أيدا قادنيس أيدا كقادس وصح بكسوت وأكوح دم وحر رجيا لطي حلقة دمشق ساعد دمشق كوح دي رجال صويا لطو دمشق اسكبت بعده حقيق وايي أيدا كقوليسة كوبكا
waxaana markaasi la wareego kooxdii kaleento oo markaasi guusha lahayd ayaa lagala wareegaa koobka. waxyaabaha ka baranaa waxay ahayd inuu qaladaadka macalinka uu lahaa ciyaartooydii dhexdoodana wada saaray. waxaa laga rabay inuu ciyaartooyda dhexda xataa hadduu saaro inuu difaacyo keensado oo difaaca solid uu ka dhigo adkeeyo, difaaca dabada dambe difaaca markaasi uu xirto, qadka dhexe xitaa haddii uu eber ka dhigay. marka muhiimadda laga lahaa waa intaa. marka qaabka ciyaareedkan uu ku ciyaarayo macalinkan waa qaab marka inta badan aan difaac lahayn, defenses lahayn, oo kooxda markay natiijo gaarto ay gadaal faaruq ka noqonayso. marka saaxiibayaal aad baad u mahadsantihiin sida weynaad noogu xiran tihiin. muuqaalkayga hadduu idin soo gaaro waxaan ka codsanayaa asxaabteeda qiimaha qaayaha mudan youtube-ka iyo facebook-gaba follow hala dhaho, youtube-kana subscribe hala ii saaro. haddii aad horey noola joogtaan fadlan isku day inaad share garaysaan oo asxaab fara badan ay gaarto. waxaa dhaqaaqi la-nahay ilaa hadeertan waa 6,000 dhaafi la-nahay. war 10,000 ayaa u baahanahay ugu horeyso asxaabta ugu horeyso oo ay hadda ay fiirsato ama maalintiiba 1,000 ay fiirsado daawado barnaamijkayga. waa inuu markaasi 100 ay iga soo raacda followa. aad baad mahadsantiin. ama 1,000kaas i daawanayso waxaan ka codsanayaa walaalkiin baan ahay. baashu barbarisiiska waa igaga bilaabatay, dhadhanaanka waa ii leedahay. aan horu dhaqaajiya idinka dhadhanaanka gaalkan ka soo qaadnay. idinkana waxa waaye bal horu dhaqaajiya bahasha oo shareta iyo liketa iyo commentiga bahasha lagu dadaalo. lacagtu way noo furantay mar hore, laakiin ma lahan viewska aad ugu liitaa. dadkii viewska ahaay oo lacagta aan ku shaqayn lahayn idinka waaye, dadka walaalaha ahayn. soomaalinima naga badan, muslimnima naga badan, afrikanima naga badan. fadlan isku daya inaa horu dhaqaajisaan. 10,000 ugu horeysa gaarsiiya. facayga ka taba tago asxaab fara badan oo xalay isku xiranahay, competition naga wada dhexeeyo. idinka Soomaaliya FIFA marka calaamada kor ugu qaada asxaabteeda. aad baad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. fi amaanillah.